10 shay oo yar oo aad samayn karto si aad xidhiidhkaaga uga dhigto mid adag. Dhaqdhaqaaqyo yaryar oo muhiim u ah jacaylka. Jacaylku had iyo jeer uma baahna tilmaamo waaweyn. Mararka qaarkood waa dhowr kelmadood oo la yidhi wakhtiga saxda ah kuwaas oo si dhab ah u garaaci kara wadnaha. Haddii aad xiriir la leedahay oo aad rabto inaad dareento inaad u dhowdahay, kuwan fudud ee halliners ayaa laga yaabaa inay qabtaan wax ka badan inta aad filayso. Iyagu maaha kuwa qurux badan kaliya daacad ah. Runtii aad ayaan kugu mahadcelinayaa. Way fududahay inaad qof la qabsato oo aad ilowdo inaad ku tidhaahdo mahadsanid. Laakiin in la xasuusiyo in la mahadiyey ayaa aad u fog. Mahadnadu waxay ilaalisaa jacaylka. 5 erey waxay bixiyaan raaxo shuruud la'aan. Haddii lamaanahaagu uu ku jiro maalin adag ama uu ku xayiran yahay is-shakiga, xasuusinta in aysan ahayn inay hagaajiyaan wax walba oo kali ah waxay noqon kartaa mid qoto dheer. Waxay u sheegaysaa in jacaylkaagu aanu ahayn wakhtiyada wanaagsan oo kaliya, wuxuu sii jirayaa inta lagu jiro duufaanada sidoo kale. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskaraabsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Waan ku jeclahay marka aad buuxi meesha bannaan. Waan jeclahay markaad gadaasha iga soo duubto. Waan ku jeclahay markaad samayso kaftankaaga yaabka leh. Waan jeclahay marka aad la wadaagto fikradahaaga goor dambe oo habeenkii. Xusuusintan yaryar waxay u sheegaan lamaanahaaga waxa aad si dhab ah u dareento oo aad uga mahadceliso. Waxay ka dhigtaa inay dareemaan in la arkay, la yaqaan, gaar ah. Waxaad iga dhigtaa mid aan ku faano. Haddii ay jibiyeen yool weyn ama ay ka gudbeen toddobaad adag, u sheegida inaad ogaato waxay kor u qaadi kartaa niyadooda in ka badan intaad u malaynayso. Kaliya maaha inaad dhahdo waan ku jeclahay, ee waxay dhahdaa waa muhiim. In joogitaankaagu keeno iftiin, macne ama deganaansho. Cilaaqaadku wuxuu dhex mari karaa qalalan, laakiin xasuusinta qof farxada ay kuu keenaan. Taasi waxay soo celin kartaa isu soo dhowaanshaha garaaca wadnaha. Waxaan ku jirnaa si wada jir ah. Marka ay dooda ama mashaakil yimaadaan, xasuusintan ayaa labadiinaba dib idiinku soo celin karta. Haddii lamaanahaagu uu ku jiro maalin adag ama uu ku xayiran yahay is-shakiga, xasuusinta inaysan ahayn inay hagaajiyaan wax walba oo kali ah waxay noqon kartaa mid qoto dheer. Waxay u sheegaysaa in jacaylkaagu aanu ahayn oo kaliya wakhtiyada wanaagsan, waxay ku sii jirtaa inta lagu jiro duufaanada sidoo kale. Ma aha ku saabsan cidda saxda ah ee waxay ku saabsan tahay inaad wax u wajahdo koox ahaan. Ila hadal, waxaan rabaa inaan fahmo. Tani waxay tidhaahdaa waan imid, waanan danaynayaa. Waxay albaabka u furaysaa wada sheekaysiga dhabta ah, xitaa haddii ay kharriban yihiin ama adag yihiin. Taasina waa sida jacaylka dhabta ah u eg yahay. Weli waan ku dooranayaa. Maalin kasta, daqiiqad kasta oo yar ayaa muhiim ah. Sadarkani waxa uu xasuusinayaa lamaanahaaga in jacaylku aanu ahayn go'aan hal mar ah. Waxaad sii dooranaysaa iyaga, xitaa maalmaha adag. Inay ooyi karaan, turunturoon karaan, ama aanay hubin oo aad weli halkaas joogi doonto. Aqbalaada noocaas ah waxay abuurtaa meel uu jacaylku si dhab ah u kobdhi karo. Taasi waxay ahayd khaladkayga, waan ka xumahay. Lahaanshaha khaladaadkaaga kaama dhigayso daciifnimo. Dhab ahaantii, waxay ka dhigaysaa xidhiidhkaaga mid xoog badan. Waxay ku tusinaysaa inaad aad u danaynayso xidhiidhka marka loo eego inaad sax tahay ma jiro xidhiidh kaamil ah. Dhammaanteen waan isku qasnaa. Laakiin sixirka dhabta ahi waxa uu dhacaa marka hal lamaane uu ku dhiirado in uu yeesho cudurdaar la'aan. Raali noqo inaad ku dhahdo ma daciifinayso. Waxay abuurtaa kalsooni. Waxay u sheegaysaa lamaanahaaga aad ayaan nooga dan leeyahay inaan saxno. Is-hoosaysiinta noocaan ah waxay ilaalisaa isku xidhka sannado adag. Maxaan samayn karaa si aan ku caawiyo maanta? Tani waa jacayl ficil ah. Sidoo kale dhibaatooyinka nolosha. Laakiin way ka duwan tahay markaad isticmaasho luqadda ku saabsan shaqada kooxeed halkii aad eedayn lahayd. Oraahda aan ogaano halkii aad ka dhihi lahayd, waxaad u baahan tahay inaad tan hagaajiso, labadiinaba hal dhinac ayuu idinka dhigayaa. Mustaqbalka fog, isbeddelka luqadda ayaa sameeya farqi weyn. Xiriirada had iyo jeer maaha kuwa ku saabsan qorshooyin waaweyn. Mararka qaarkood, bixinta caawinta qaadista maalin xun ayaa ku filan. Waan ku helay. Way gaaban tahay, laakiin aad bay u badan tahay. Waqtiyada adag, lamaanahaagu ma rabo xalal ay rabaan inay ogaadaan inaad halkaas joogto. Waa xasuusin in jacaylku aanu u baahnayn filtarada. Inay ooyi karaan, turunturoon karaan, ama aanay hubin oo aad weli halkaas joogi doonto. Aqbalaada noocaas ah waxay abuurtaa meel uu jacaylku si dhab ah u kobdhi karo.
Odhaahda tani waxay ka dhigi kartaa inay dareemaan ammaan, la arko iyo kaligood. Waad ku mahadsan tahay inaad ii dulqaadatay. Dhammaanteen waxaan leenahay maalmo fasax ah. Haddii lamaanahaagu u naxariisto marka aanad ugu fiicnayn, ha u qaadan wax run ah. Iktiraafka yar ayaa macnaheedu noqon karaa wax walba. Ma aha wax ku saabsan edeb, waxay ku saabsan tahay aqoonsiga. Qof kastaa wuxuu rabaa inuu dareemo waxa uu qabanayo.